sidaan la socono waxaa socda koobka qaaradda Yurub ee Euro 2024 waxaana kooxaha qaar u gudbeen wareegga sidedamaadka ee koobkan ee sanadkan. Haddii aynu dib u eegno xalay waxaa la ciyaaray laba ciyaarood. Ciyaar waxay u dhaxaysay England iyo Slovakia. Spain iyo Georgia way ballansanayeen. Ciyaarta xiisaha gaarka ah waxay ahayd ciyaartii u dhaxaysay xulalka England iyo Slovakia. England xilligan waxay ku jiraan waqtiyadooda ugu fiicnaa, ugu ciyaaraha wanaagsanaa, ciyaaryahanno fiican bay haystaan. Laakiin xalay bixi ayay wareegga sidedamaadka ee koobka ugu gudbeen. oo iyadoo 90 daqiiqo gabagaba yihiin ayay goolka barbaraha keeneen. Inta kadib markii 30 daqiiqo lagu darayna waxa way fiicnaayeen oo inta dambe iyagu aad bay ciyaariyeen. Laba gool iyo hal ay ciyaarta soo dhamaatay. England diiq bay halka ku gaadhay. waxaana muuqata tababaraha imika haysta inaanu tababarihi ku haboonaa England xilligan ahayn. sababtoo ah ciyaaryahanadu xataa qaabka u ciyaarayaan ma moodaysid England inay ciyaarayso. Spain ku iyagu si fudud ayay u gudbeen Georgia. caawa haddii aan eegno laba ciyaarood baa jira. waxa xiiso badan ciyaarta u dhaxaysa Faransiiska iyo Belgium oo labada xulba laba xulo aad u wanaagsan. Faransiiskuna xilligan xilli wanaagsan ayuu isaga laftiisa ku jiraa. inkastoo oo wareegyada hore aanu soo bandhigin ciyaarta looga baahnaa labada kooxood ee labada xul ee Belgium iyo Faransiiska midkoodna. Portugiiskuna waxay la bilayseen Slovenia. isaga laftiisu waqtigan wuxuu ku jiraa xilliyadiisa ugu fiicnaa, ciyaaryahanno fiican buu haystaa. laakiin haddana wixii laga sugayay ma soo bandhigino koobka laftiisa in ma garanaysaa ay kuwa loo socdo inay mid noqdaan bay ahayd. laakiin wareegyada hore waynu soo aragnay ciyaar fiican may soo bandhigin. kulli caawa waxa loo gudbayaa wareegga xiga ee sidedamaadka Euro 2024 marka xul kasta waxa u dagaalamaya sidii halka u tagi lahaa. laakiin bal labada kulan ee caawa jiraan sidii ku soo gabagaboobaan halkan ayaan kala socon doonaa.